السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال كسر warbaahinta Nursum TV magacaygu waa Saciid Maxamuud Muuse. Gurguritaanku ama in qoysaska ay meel ka guuraan ama xaafadda ay degnaayeen guriga degnaayeen ka guuraan meel kala degaan ama magaalo ay degnaayeen ka guuraan oo magaalo kala degaan ama wadan ay degnaayeen ka guuraan oo wadan kala degaan ama carruurtooda u raraan waa qayb ka mid ah dhaqanka Soomaalida ama lagu tilmaamo reer guuraanimada. Laakiin marka qoysku uu leeyahay carruur waxa laga yaabaa in mararka qaarkood gurguritaankaas ay dhibaato ama caqabad xagga koritaanka xagga waxbarashada iyo xagga la qabsiga wadanka ilmaha ku nool yahay oo kan ilmahaas. Barnaamijkan maanta waxaan si gaar ah u eegeynaa dhibaatooyinka ilmaha Soomaalida ee Norway ku nool ama dalalkan Scandinavia qurbaha ku nool ay u geystaan ama ay kala kulmaan marka reerkooda uu ka guuro wadankii ay degnaayeen wadanka kala degaan laakiin haddana lagu soo celiyo wadankii ay ka guureen. Salahaan in qoysku ka guuro Norway uu dhowr wadan oo kala soo dego haddana ilmihii dib loogu soo celiyo Norway. Barnaamijka waxaa markaa marti igu ah dad Soomaali ama dhalinyaro Soomaali oo aqoon-yahannada kulligoodba oo mowduucan ka wada shaqeeya ama aqoon ama xiriir leh. Haddaan ka bilaabo dhanka bidixdeeda waxaa fadhiya Cabdi Xamiid Maxamed Xuseen waa tababare ka tirsan xiriirka kubadda cagta Norway waana siyaasi ka tirsan siyaasiyiinta xaafadda gurigooda u degan yahay. Waxaa ku xigo Xuseen Cawad Nuur oo ah aasaasaha iyo maamulaha shirkadda guryaha ee Ramas Buli oo ah shirkad ka shaqeyso ama isku dayaysa inay xal u hesho caqabadaha ka haysta bulshooyinka muslimiinta gaar ahaan Soomaalida dhanka guryaha. Waxaa ku xigo Faiso Cabdi Nuur oo ah gudoomiyaha ururka Hope Competence oo ah urur ka shaqeeya ka dhisan xaafadda Tooyin kana shaqeeyo arrimaha qoysaska iyo dhalinyarada gaar ahaan arrimaha shaqada iyo qabsiga iyo waxbarashada. Waxa uu geeskii ugu soo xigo Abraar Jibriil oo ah sharci yaqaan kana mid ah dadka Soomaalida kooban ee bartay mihnada xirfadda qareennimada. Dhammaantiin waa mahadsantihiin. Soo dhawaada aad baan kaga mahadcelinayaa waqtigiina ayadoo maalin shaqo ay tahay inaad iga aqbashaan casuumadan mowduucan aan ku furfureyno. Waxaan markaa hore inaan afeef dhigto ah mowduucan aan ka hadlayno waa mowduuc laga yaabo dadka qaarkood inay aragtiyo kala duwan ka leeyihiin. Marka waxaan rabaa inaan fahansiino dadka inaan wax ujeeda aan ka lahayn kaliya ay naga tahay wacyigelin iyo dhibtaas oo noo muuqato aan aragno ama statistic ahaan ha noqoto ama ha noqoto jidka in lagu arko marka dhalinyaro badan oo Soomaaliya la kulantid ay arrintan dhibaato u keentay gurguritaanka. Haddaan si su'aal kulligood ku wada bilaabo si isla siman Faiso aan kugu bilaabo waalidka Soomaaliga ee Norway ku nool aad u gurguraan tirakoobku wuxuu sheegayaa in labadii sanaba ugu yaraan hal mar ay guuraan ama xaafadda degnaayeen ka guuraan xaafad kala degaan ama magaalada inta ka guuraan magaalada kala degaan mararka qaarkood ay wadan ka guuraan wadan kala degaan oo imaan doona caqabadaha arrintaas keentay laakiin sababaha waalidiinta Soomaalida ku badiyay inay gurguraan maxay tahay wax ma noogu tilmaami kartaa ma arrin shaqo ma arrin dhaqaale ma arrin qoysba ilaa bulshooyin kale oo ajaanib aan la noolnahay annaga maxaa gaar nooga dhigo aan u gurgurna soo dhawow. Waxaan ku bilaabi lahaa horta marka laga hadlayo waalidka inay guuraan oo wadanka dhexdiisa ah waxaan u maleynayaa horta qof jecel inuu guuro ma jiro because guuritaanka process iyo dhibaato buu qofku uu maraya ilmihiiba ay noqonaysa iskuulkii in laga bedelo meel cusub bay bidal cusub oo kale u wareegayaan. Waxa ila tahay haddii aan laga hadlin dadka maanta criminal buliga degan oo maxay ahayd iyagu maanta contractigooda xitaa yacni la dhihi karo dawladdu way u tixgelinaysaa xitaa haddii guri la'aan ku dhacdo waxaa jira Soomaali badan oo private bully market degan taasoo keenaysa beritoole marka lagu dhaho qofkii guriga iska lahaa uu yiraahdo bax gurigayga waan u baahanahay waxay noqonaysaa inuu guri kala raadsado. Marka gurigii markaad raadsanaysid adiga waxaa tahay qof baahana ah waxaad qaadanaysaa guri meeshii lagaa siiyo oo dadka kale ay ka ijaarayaan. Marmarba waxaa dhacda inay dadku ay rabaan biidelkooda inay deganaadaan laakiin intaasoo viisninga intaasoo guri intay tageen loo diido. Marka guriga waxaa laga yaabaa in biidel kale guri laga siiyo oo gurigaas uu qofkaasi sidaa ku qaato. Marka guuritaanku waxaan u maleynayaa wadanka dhexdiisa ah yacni waa mid ku xidhan inuu qofkaasi guri la'aan caqabad guri la'aan inuusan meel uusan ku xasilnayn ay jirto. taasna waxaa keenaysa maadaama qofku uusan guri isagu uusan gadan kareynin duruufta keenayso inay dadku aad u guurguuraan.
tan wadanka laga guuriyana ama ilmihii la diraya oo la leeyahay waxa loo dirayaa Carabaha waxa loo dirayaa wadamadaas kale Kenya mararka qaarkood waalidku way raacaan laakiin inta badan ilmaha la diraa kaligood taa maxaa fikirka ka dambeeya in ilmaha la diro maxay tahay ilaan wax cusub wax muddo soo jiray absolute way jirtaa wayna dhacdaa waxaan isleeyahay waalidku marka horta ilmo wadanka ka dirayaan waxaan malay badanka inta meesha fadhi waalidiin bay yihiin laakiin way adagta horta inuu waalid uu ilmihiisa diro waxa uu ilmahaas loo dirayna waxaan u malaynayaa ujeeda ka dambaysa waxba jira waalidku uu ka cararayo waxba dhib baa jirta dhibtaasi waxay noqon kartaa waalidkiyo for example raba amba arkay ilmihii oo dhaqankii diintii maxay ahayd luuqadiisii ka fakaraya oo isdhahaya ilmahan waxaan inay arkaan in ilmihii uu sii milmayo oo ay ilmahan future ahaan uga baqan iyo identity-kooda ilmahan yuu yahay ilmo Soomaaliya weeye marka waalidku waxay rabaan ilmihii in Soomaalinimadiisii iyo muslimnimadiisii ay adkeeyaan xoojiyaan taas waa maxay ahayd waxyaalaha keenay in waalidku ay ilmaha ay amba iyagu ay diraan amba ay la guuraan waxaa kaloo jirta tan ah inay waalidku ay arkaan oo badanka runtii dhacday dhicina doonta inay arkaan waalidku in ilmihii oo sigsaag bilaabay wada khaldan ilmuhu markay ku arkaan inuu bilaabay inuu galo waa waxyaalaha keena oo in maxay ahayd ilmahaaseeto waalidku ay ka fakaraan inay wadanka ka saaraan oo soo noqon doona dhibaatada xabad u imaan doona laakiin Xuseen ilmaha labada su'aalood bas ka raacinaya tan ku saabsan gurguritaankaas maadaama guriyaha ka shaqeysa caqabada dhanka guriyaha iyo midaan ku saabsan haddii ilmihii wadankan ay dhib ku qabsatay oo tusaale ahaan iskoolku ka xumaaday in la diro maxalba maan halkan xal loogu heli karin ayadoo systemka la adeegsanaya ama si kale loo xalin karo طبعا waa loo heli karaa xal haddii la isku taxallujiyo ama haddii dee maaragtay ay bulshaweyntu ka qayb qaadato maadaama haddii qofka la dedeerayo waxa weeyaan dabcan waxa sabab keentay in loo diro waxaana weeyaan waalidku ama qofka de waalidka aniga tusaale iska soo qaadaya oo caawa igu horeysa malaynaa shaac ka sheego waxa kamid ah dhalinyartii bariga hore la celiyay wana dareemi karaa qof ilmo la celiyay wuxuu dareemayo shakhsi ahaan waa wax aad iyo aad u culus laakiin markaan ay noqoto in waalidku wax culus wax fudud horta maaha in la celiyo ilmo laakiin dhibaatada waxa laga yaabaa qofka inay ka dahsoon tahay dhibaatada uu wato hadhowto hadda waa xal laakiin hadhowto muxuu leeyahay taasa laba wax bay kala yihiin marka waan xasuustaayo markii aan dee soo noqday anigu aan arkay kuwii aan isku kalaaska haynoo bilaabay biidargoonayaal anigii lagu yiri dib u noqo rafaad baa imanaya waad ka dhacaysaa dhowr sano dib u dhacaysaa taasina waxay keenaysaa qofku inuu niyad ama ilmuhu markaa niyad dhinto ama niyaddu ka jabto inuu bilaabo dee waxyaaba badan oo kale baa markaa fududaanaysaa tii kale guryaha ku saabsaneed amalaha umaleynaya relevant adiga ku tahay gaar ahaan ha absolutely tan maxaynu u guurguurnaa ama maxay bulshadu u guurguurtaa waa kiis aad iyo aad marka dhinac loo eego aad u culus qof kastaba horta dib wuxuu miisaanka saaraa un beegaya anigu aad iyo aad buu ila culus yahay inuu qof family caruurtiisa iskuul bilaabeen inuu guurguro siday taa sheegayso statistico aan ka mid ahaa qudheed inaan kuwii qaaday aan tabato hore ama 2 sano mar guuraya ilmuhu waa wax aad iyo aad u culus waxay keenaysaa horta burbur mustaqbal oo niyad ay keenaysaa waxay keenaysaa burbur dhaqaale oo sababtoo ah qof kasta guura sanad kasta waxa la naga qaataa intaas oo malaayiin oo dibaaji ah ayaa la naga haraa dibaaji waa rahmadda guryaha la dhigo waxay keenaysaa in aad caruurtii la qabsatay halkii ay deganaayeen inay meel cusub u guuraan taasi qudheedu asxaabta wax ka muhiimsan ma jira aad la soo kortay iyaduna waa niyad jab laakiin haddana waxa ka sii daran adoo halkaa markaa la qabsaday haddana ka guur mar kale waxa weeyaan wax aad iyo aad culus oo u baahan in la eego iyo sida xalka lagu keeni lahaa waalidku duruuf baa haysata saasina ka dhawaajisad laakiin marka ay guurayaan waxyaabaha ay qiimeynayaan baahida ilmaha ku jirta yani anaga Soomaali ma nahay ilmuhu inta in leeg buu qiimeynta qayb ka yahay mustaqbalkiisa iyo xiriirkiisa u deegaanka uu ku nool yahay la qabsada walaalow de
horta qofka dee dabcan waalidku wuu qiimeyn karaa ilmihiisa iyo ka guurka waxa laga yaabaa qofkan waalidka abqudhis inuu la qabsaday meeshuu deganaa inaanu jeclayn inuu ka guuro laakiin waxaa duruuf baa keenaysaa qofkii dee markaa awooda ama uu deganaan karaa oo guryo dee kasii qaalisan meelihii horta guryaha kiraduna laba nooc bay u baxaan imanka Norway midna waa guri commune oo dawladdu leedahay midna waa private oo labadaas bay u baxaan imanka oo ama marka communekuna dee xadid buu leeyahay dhaqaale dakhli hadduu kusoo galo intaas leeg waa laga saaraya sharciga dhigaya kan privatekuna waxa weeyaan waa guri dee waa laga saaraya isaga qudhiisa mar hadduu qofkii lahaa u baahdo opsiga ama wuxuu bixinayaa uun 3 bilood ayuunba kusii sheegaya uu kaa saaraya ama ha iibiyo ama familigiisa u baahdo marka dad waalidku way kulli way tixgelinayaan iyaga qudhoodu way tixgelinayaan baan aaminsanahay anigu laakiin waxa keenaysa duruuf iyagii tii awood weyn ayaa yani aniga igu dhacday aniga shakhsi ahaantayda aniga igu dhacday oo u baahan marka in meel lagugu tuuro inaad ku qasbantay inaad digitaalkaas ama dee adigu iska waxaad doonto u samaysid oo soo noqon doona Cabdixamiid xuseen soo ka dhawaajiyay ilmaha deegaanka uu degan yahay iskool kaliya ka markaa saaxiibo ku leeyahay kubad baa laga yaabaa inuu ka ciyaaro local club kino ka tirsan yahay saaxiibo ku yeeshay daris ku yeeshay hadana laga raro wadanka laga bixiyo ama dhahna kiiska wadanka laga bixiyo soo qaadana asagoo 8 sano jira ama 10 jira laga kixiyay carabaha la geeyay deegaanka uu ku noolaa oo network uu ku sameysay ka dhax bixintaas email usna aqoon la geenayo koritaankiisa maskaxeed iyo saaxiibtinimo iyo xiriirka damage ama dhaawac inta leeg bay gaarsiin kartaa ka macallin ahaan maadaama tababaro macallimaad tahay dhalinyaro badan aad la kulanto kubadaad kula kulanto wallahi kulli hadda sida la sheegay siyaabooyinka waa badan yihiin dhibkana macnihii dhib marka hore aan ka taxadarna maahno marka wadankan imaane wadanka macnaha qofka marka ku imaanay qofka process uu bilaaba waalid kaligiisa imaada ama ilmihi ay kala socdaan ha imaadaan bulshada horta waxay u baahan tahay wax la dhahayo qofku inuu system fahamsan yahay isboortiga hadii la dhaho cunuga oo hadda macna kalaabiyada hadda oo wadanka jira ay saameyn badan kuma yeelato hadii kalaabkan uu ka tago ama kalaabkiis kalaab kale ka fiican uu tago saameyn weyn ma yeelanayso cunugu wala qabsan karaa oo ama waxay ku xiran tahay waalidka sida cunugu ula socdo laakiin dil dhaho wadanka laga saara taas kulay macnihii wax isbedel weyn waa imaan karaa nolosha intuu ku haystay wadamo badan waxa jira oo laga yaabo inay dadka u aadaan oo kale laakiin facility ama activity-ka meeshan uu ku haysto uusan heli karin waalidkina macnihii maxaa ka mid facility-ka ilmaha halkan joogo sida hadda waa haysto Norway oo kale hadda cunuga markuu galaaska koowaad bilaabo oo fursad u leeyahay inuu ama koox ka qayb galo ama duu rabo football ha noqoto ama wax walba sport ku saabsan ama wax hobby u leeyahay laakiin wadamada qaarkood ma leh hadii lagu laabto kala Soomaaliya kala ma leh wadamadan kale hadda noogu dhow Ingiriiska oo kale ma leh macnihii Norway way ka fududahay laakiin cunugina hadduu wixii oo macnihii la qabsaday uu waayana kulay isbedel oo ku imaan karaa laakiin muhiimadda waxay tahay tii koodu hadda u soo laabto gurguritaanka qofba siyaaba ku keento laakiin bulshada waxay ku fiican tahay macnihii in la isweydaarsado macnihii xaafadda qofkaas degan yahay oo kale waalidiin badan degan macnaha wada tashigaan ugu yar warbixin wada qaybsiga okay also marka muhiimadda taasa keenayso macnihii qof oo hadda sida Xuseen oo kale experience hore u leeyahay wax badan oo arkay oo asagoo haduu ka hadlay taasoo kale markii bulshada ay Xuseen oo kale wareystaan macnihii waxbay ka baran karaan oo alkaadan su'aal ka dhaweydii ilmahan waxna waa iskoolka waxna waa free activities kan kale qaybta ka yahay waxa laga yaabaa xaafadda leedahay koox kubad waxa leedahay in dance group jiro bulsho qayb ka yahay yani deegaan buu qayb ka yahay markii laga dhax saaro meel uu san aqoon la geeyo hadhow inuu wixii uu haystay meel kale ma ka heli karaa ama taas maxay ku yeelan kartaa asaga shakhs ilmahan dhalinyarada tan xaafaddu ku haystay kulay isboortiga wax dhib ma leh
laakiin hadda sida qofka dance dadka ilmaha micnaha waxaa jira gruubyo dance garee friti du club ay midlim ama ay ka yihiin maxaa la qeyb ka tirsan oo fursado badan ay ka helaan ay jirto laakiin hadduu xaafad kala tago xaafadii u furneed ama fursadii ma helay hadduu wadan ka tagana macnihii way noqonaysaa waxbay ku yeelanaya saameynay ku yeelanaya okay abrar waalidiin badan waxaa laga yaabaa marka qaarkood inay dhahaan ilmahayga waxbarashadii aan la rabay uu ku yara liitaa tusaalahaan inuu karakteer ku fiican heli waayo inuu uu isgoysmo iskoolka bilaabo ay dhahaan okay wadanka laga saaro laakiin hadhow indaanda wadanka uu lagu soo celi markii 5 sano 6 sano uu ka maqno markuu qofku 5 sano 6 sano oo galaas ka maqnaad galaaska 7 8 9 ama dugsiga dhan buu uusan dhigan inuu nidaamkii waxbarashada ku soo noqdo Norway meel luqadii laga yaabo inuu soo ilaaway laga yaabo inuu maadooyinkii muhiimka xisaabta iyo fiisiga ka maqan yihiin inuu nidaamka waxbarashada qaybta ka baxay ku soo noqdo maadaama ay jurist tahay oo waxyaabo uu adag la bartay Norway ka mid tahay la soo galo dib inta la gubay qofkan ku noqon karta inuu nidaamka waxbarashada markii hore qaybta oo ku dib ugu soo noqdo أنا هنا من سنة دب بدن بي أوكي أنا سقفكي اللي هي يساق كل عضو عرفت أنا كير هذا أنا وح أنا عيل ملي لكن وح كتر كرا أنا نوري من كل شيء لكن وح كل شيء استبانجر وعليك أفر بنا صدق بقى كل شيء استبانجر أنا كل كاكوسو كورني عبار مدير بان بكا ولا نص سجل شربنا أيا نص كورني إسلانا marka guurka noocaas horta anigu way soo maray laftigeeda anigu reerkeena ma nusmeen laakiin dad badan ba iyaguna oo Stavanger ka bilaaway ayaa horta Oslo oo guuray markaana Ingiriiska Soomaali badan ba Ingiriiska biri oo guuray xitaa dawladda ayaa badareentay oo raporti laga qoray inay Soomaali badan ka guureen Norway oo Ingiriiska guureen qaar bana hadana mar saddexaad ama afraadna oo guuray Soomaaliya oo kale ama Soomaaliland oo guuray oo de waa guur afraad oo kale noqonaysa waliba guur badan oo dhaqan cusub oo ilmi la kulmiyay noqonaysa marka anigu taamaanu sameeyay laakiin waxa jirta dad badan oo xitaa iyagu laftigooda la wareysan karo Ingiriiska iyo Soomaaliya labadaba ama mid kamid ah oo guuray taas marka waxaan u maleeyaa wax horta ganaay adiga salaam ku soo qaadana marka ka soo guurtay Rogaland Australia soo degtay inaad nidaamkan cusub iyo deegaankan cusub la qabsatay imse ku qaata maxaa kala kulmay ilmaha muxuu kala kulmi karaa wataale waa su'aal aad u fiican waa iyada laftigeeda waxaan rabaa inaan ku salaabto su'aashii ugu horeysan oo yar taabanaysa anigu horta waxaan haystay dialect kala haystay marka kaan waxaan rabay si degdeg ah inaan olumino Stavanger dialect oo halka waa lagu leeyahay marka waxaan xasuustaa markii ugu horeysan waa lagu yaracay jiro si walaalkayga weyn baa suguna aad sugu forbildno ahaa sugu malaha dhowr bood buu ku bedelay dialectkiisa taas horta waan dareemay isbedel weyn ilmaana waxaasoo kale wax adag bay ku noqon kartaa haddii ilmihii dee lacahayo kale ama asaasi waxay ahaan karta wax dee in badan ilmihii la soconaya dee oo dee negative ta dee ilmihii ku noqonaysa talabaad oo adiguna markii hore aad weydiisay ana waxaan xasuustaa anoo 3 baan iskuule baan dhigtay marka waxaan xasuustaa anagoo Stavanger dhigano ma garanayo mathematica dealing ama waxaas schoolisha Norway waxa la yiraahdaa sanad gudaheed ayay isku wax baranayaan laakiin schoolkii kala si buu haadeen karaa goorta yani halkay kala mariyaan sanad gudaheed un beeraan ama dhamaadkeed inay isku mid haadaan marka waxaan xasuustaa mathematica anagoo meel marna ayaan imi ama oo sugoonay Islaanka iyagoo marka meel kale ama wixii aan dhiganay dhameeyo waxaas marka mathematica weligay waan ku liitay waxaan u maleeyahay waxyaabo kamid ah waxay tahay guurka waxaan laftigeeda bartay ama arkay marka weynaaday waalidku nooshku wuxuu ku fikiraa markuu xitaa guuriyo ilmaha yana ka saarin school districtka ama xitaa schoolka marka anaka Soomaaliland waxa oo kale kuma fikirna bal laakiin waxa loogu fikirayaa waxana nimkan sheegi waxa la rabay ilmihii inuu waxde ka lumin marka anoo wadanka gudaheed guuray ayaan ka dhex dareemay inay wax iga yar maqnaayeen ama yar dhaafeen marka waxaan u maleeyahay qof wadankii ka baxay oo ku soo laabtay wax badan baa dhaafiya hadan ku soo laabtay arinta aad sheegtay qofka raba inuu lawyer noqdo ama dhakhtar noqdo ama engineer shaqooyinka waa shaqo ay xitaa cadaanku ama nooshka ku etnis nooshka kula tartamayaan waa tartamayaan halka ay iskuulka lagu galay marka ma aha inaad iskuulka aad galaysid aad dhiganaysid waanaad xitaa karakter fiican keenta
warad iyaga xitaa aad la tartamta aad ka fiicnaata taana waxay markaa ay keenaysaa su'aal ay noqonayso see markaa halkeed maraysaa markaad jaamacadda aad codsanaysid yani vurgu waa dhib fudeed tidspunkta su-aasha ku saabsan ilmahan la eliyay oo laga yaabo inuu dhowr wadan soo degnaa 5-6 sano oo CV vitmolkiisa ama shahaadadiisi ay maadooyin badan ka maqan yihiin marka lagu soo celiyo waalidka weli waxay rabaan inuu ilmihii wax u sii barto marka inuu systemka ku soo noqdo meeshii waxbarashadii uu marka hore ka tagay ku soo noqdo ama galaaskii uu ka bilaabo mid cusub bilaabo caqabadan taag leh buu kala kulmaa I think su-aashaas waan qofkii kale wax ku dari kara laakiin abraar ku soo dhow mar kale horta dhibaatada ugu weyn waxay tahay baa taa sheegaysid waa sistema kala duwan bay wadan kasta u leeyahay marka qaar baa anagoo kale ilaa aad gaaraysa jaamacadda waa nambaro ilaa 6 wadamaha magana ingiriiska malaha waa bookstaver A iyo B iyo waxyaabaa kale taa horta waa wixii ugu horeysa oo baanta inaad heshid horta vitmol ama wax aad ku codsan kartid baa jaamacadda taas baa horta ugu horeysa markaana waxaa imaanaysa inaad haysatid karakteerkii lagaaga baahnaa inaad ku gashid markaana inaad wixii si fiican u baratid marka waxaad ka dareemaysa waxaan inay noqonayso wax aad u adag wixii bala adkeeyey intaad moogtay waanaad markaa taad ku fikiraysaa markaad ilmahaaga meesha aad nuur ka kaxaynaysid waad ku adkaynaysaa marka taa ilmahaaga diyaar muu yahay inuu ka gudbo ama maaha marka taa waa waxyaabaha kamid Fays waxma ku daraysaa Hussein يعني waxbarashada horta waxaan maleeyaa waa 3 waji hadaan sax hadaan qaldanayn waxa weeyaan horta barna school ama dugsiga hoose meel la dhahaa iyo ungdum school oo isna dugsiga dhexe saan maleynayo iyo jaamacadii hadii la celiyo ilmo markuu marayo barna schoolka waxa suurtagal ah inaanay ma saameyn balaadmi iyo nololeed ilmaha ku gaadha bise ma saameyn waxbarasho uma maleynayo inuu wax iyada dif aad u badan inuu ku gaadhayo barna schoolka laakiin wuxuu gaadhayaa markay noqoto ay ungdum school dhigtaan ay u gudbi lahayn bidirgoonaha waqasa markaa inay dib soo noqdaan oo qaataan ungdum school shahaadadeedii si ay u gudbaan markaa bidirgoona taasi waxay keentaa markaa dhowr sano iyada qudheedu oo yiraahdo markay ka dhacsanaa inaad dib u bilowdo waxaad hadda doonto ilowday ama afkii ha noqoto ama waxbay kala duwanaha noqdaan maadooyinka arinta ku saabsan luqadda way ilaawaan hadaan adoo 8 sano jira dil uu kaxeeyo 5 sano ama 6 sano aad soo noqoto laga yaabo inaad luqadda xasuusto laakiin sidii aad uga hadli jirtay kuma hadlaysid taalaftirkeeda inaad mujtamaci ashara kamid aad ku soo noqoto dib inta lag bay kugu keeni kartaa hadaan anigu taa experience aan shakhsi ahaan iska soo qaado luqadda anoo ka maqnaa haddaan doono wadanka in badan maskaxday ku jirtaa haddaad baratay hore u baratay waxaan u baahnaa 3 bilood intaan soo tufayo markaan soo noqday anigu ahayd inaan de fleetna dib ugu hadlo adigu 3 bilood ugu badnaan laakiin ereygii oo dhan waad fahmaysaa waxaa laga yaabaa inay kugu adkaato inaad ku jawaabto markaa matalan af norwejigiide laakiin waa luqadda ma ilaawaysid waxa laga yaabaa inaad qoritaankiisii shaqaladiisii waxyaabahaas aad ilowdo laakiin haddaad markii hore ilmo aad ku dhashay ama ku koray halkan oo af norwejiga yaqaanay badi markii buu soo noqdaa af norwejigu ama luqad kastoo aad carabi ha noqoto ama mid kasta ha noqoto markaad ka yara baxdo markii buu soo noqoto waad carruur tahay qof weyn ma garan karno Fays hadda waxaan fokuska saari karnaa oo maleynaa mawduuc hadda aan bilownay tan waa la waxba isaaran tan gurguritaanka gudaha dalka iyo tan ku saabsan bixitaanka ilmaha la bixinay I think tan hadda waxaan xoog yar saari karnaa midda bixitaanka ilmaha wadanka laga saaray hob kumitaanse waxa ka shaqeysiin shaqo abuur aan leeyahay u sameeysiin dhalinyaro badan waxaa jirto wadanka markii laga saaray soo noqdeen ay ku adkaato inay suuqa shaqada ku soo noqdaan ha noqoto aqoon ka maqan ha noqoto CV aysan haysan shaqo yacni inay meel shaqo qof ilmahaas oo kale markay soo noqdaan caqabad inta lag bay kala kulmaan sidana waxa leeyahay idinka dad la kulmateen dhalinyaro noocaas oo raba inay shaqeystaan laakiin suuqa shaqada caqabad kala kulmay galitaankiisa horta sanadadii ugu dambeeyay way jireen ilmo iyo waalidiin la soo xidhiidha oo yiraahda ilmahayga shaqo ma helayo meel kale kama helayo idinka shaqo ma noo siin kartaan samarka ilmahaasna waa ilmo aan rabno runtii inaan ka hormarino ilmaha kale aan ognahay wadanka ku koray oo fursadaha kale haysta maxay ahayd marka
caqabadaha ugu horeeya horta isuu walaalkan Xuseen uu galayba waxay ku xiran tahay horta ilmaha intuu wadanka ka maqnaa haddaan ka hadlayno sanad oo dhaqan celisa aba 2 sano maybe luqada wax badan ma ka saameynayso laakiin still dhibta taagan waxa weeyaan maadigii iskuulkii siiba dadka Norway ka baxay ilmahoodu Norway bay ku hadlaan Ingiriis waxba laguma baro marka markii for example Kenya la geeyo amba meel kale la geeyo waxay u baahan yihiin waxay wax ku dhiganayaan luqada xagga wadanka laga hadlay ma haystaan fursad oo Ingiriisi xitaa maanta international school hadii la geyn lahaa markay soo noqdaan waa dhibaatooyinka xitaa ilmaha xagga kala kulanta in hadda ilmo haduu Ingiriis ay waalidku damcaan inay wadankii ay u celiyaan amba ay wadamo kala geeyaan waxay ku helayaan luqadiisa Ingiriisiga barta looga sii wadaya so ilmaha haduu Ingiriiska ama Mareykan amba Canada uu ku noqdo waxa laga yaabaa inuu hadii wax yar la yar caawiyo wixii uu la qabsanay laakiin Norway markay ilmihii ay meesha tagaan lana qabsanay xagga yimaadaan waxaan u maleynayaa in farq weyn baa u dhaxeeya taas waxa keenaysa xitaa walaalna uu dhexgalay ilmahan markuu Vidrogon iskuulaha uu dhiganayo meeshan already concurrence ka jiro oo tartan ah oo ah maxay ahayd maadooyinkii badanka aynu ku baraarugsanayn oo waalidiintan anaga aan jecelnahay xitaa inaan fahansiino waxa weeye ilmahan markuu hal maado uu ku dhaco oo uu yiraahdo imtixaankan gadaal baan u qaadanayaa waxay sameynaysaa markuu Britore jaamacadda galayo darajadii lagu soo galayay kor baa loo qaadaya taas waxa weeyaan system loogu talagalay inuu ilmuhu marka ugu horeysa Vidrogonaha uu ku dadaalo oo aanan la rabin in la jeclaysiiyo intuu iska seexdo oo hadhowna sanad ka bacdi 5 maadooyin iska qaato taasna waxay burbur ku keenaysaa ardaydii dadaashay Vidrogonaha marka hadhow ilmihii markay anaga ay soo noqdaan shaqo raadiska ay yihiin waxyaalaha aan la eegno waxa weeyaan ilmihii niyad jab waxa kaga dhacaya wuxuu rabay ma soo galayo because waxay noqonaysaa already inuu 5-6 maadooyin uu qaato markuu already maadooyinka uu qaato uu dhex galo darajadii uu islahaa maanta waad ku soo galaysaa haddana 5 baa kor looga sii qaadaya ilmaha ku khasbanaya marka inuu maadooyin kale dheer categorical dad waaweyn broter sameeya oo soo shaqaystay oo rabeen oo wax badan yani maanta waxa laga yaabaa in anigaygaas maanta aan ilmaha uu aniga ila tartamay hadaan dhaho maanta dib baan jaamacad aan u galaya mana u fiicna runtii mana aha waana wax ilmahaasayto niyad jab badan runtii ku keenaysa marka anaga siyaabahan shaqada ku siino waxa weeyaan in aan ilmahan eegno horta baahidiisa markaan aragno inuu yani baahidan uu ay tahay mid ku salaysan guuritaan oo ilmahan aaguna inuu fursad siinin shaqada waan siina waxaan ugu dadaalnaa intay naga tagin samarkaas into waxyaabaha idin sheegaan oo ay ka hadlaan dhan sababtan baan shaqo u helweynay wax manawad wax oo falis track haduu jiro ka dhaxeeyo waxa falis navenarku waxa weeyaan kulligood soo wada gashay waxa weeyaan inayan shaqo hore uga soo shaqaynin markay meelo kala tagan waxa lahdaa reference ma haystaan shaqo hore may uga soo shaqaynin ilmahanna waxaan u malaynayaa qayb cunsurinimana runtii way ka jirtaa laakiin marka anaga noo yimaadaan waxaan ku dadaalno waxa weeyaan inaan goobta ugu horeysay shaqada ay geli karaan inaan noqono sidaana aan seeknaadkeeda iyo seevogooda aan uga caawin karno okay Cabdixamiid hadda waxa laga dhawaajiyay waalid haday bilowga faas waxa ka dhawaajisay in waalid badan ay rabaan in ilmahan dhaqankiisa iyo diintiisa u haysto Norway waxana la degan qowmiyada kale oo ajaaniba Pakistanta kamida Sri Lanka kamida ilmahoodu luqadooda way kaga hadal badin kuweena statistics ay sheegaysa ayagoo wadanka ku dhashay generationka labaada baa laga yaabaa inay luqadooda kaga fiican ayagoo wadanka bixin annaga marka Soomaali ahaan ama ka generation ahaan Soomaalida halkan degan bulsho ahaan miyaanan ilmaha Soomaalida oo halkan ku korayo loo sameyn karin iskuulo tilbuuda oo luqadooda ku bartaan dhaqankooda ku bartaan identity-gooda Soomaalida ay ku haystaan qasam yaa in Soomaaliya ilmihii la geeyo Soomaaliya u noqdo wala fursadaas way jiraan wadankan horta kulay wadan fursad badan waa wax aan la sameeysan karin male ajaanibta kala dhax gashid dhinaca siyaasadda dii loo Pakistan badan aan macnaheedu aad isku dhownaay hadii loo xaafad biidalkan deganay qaybtan activity ninkaysta Pakistan way macnaheedu wada shaqeyn badan oo waxa jira aad ay culture-kooda ku baranaysid anaga horta Soomaaliya markii runta la sheegay macnaheedu fikirkeena waa badan yahay macnaheedu wax walba inaan sameeyno waa jecelnahay
laakiin waxaa naga dhiman macnaha hadda sida miis ku fadhina oo kale fikir markaan keeno waa ina waxqabadkiisi na daba joogaa hadda dii laho maxaa la dhahaa xaafadaha degana oo kale Sri Lanka hadda ka dhawaajisay meel dhan oo kultuur huuska lahay ama gururud huus la dhahay 5 galabnimo haddaad tegtid ayay kaa wada fadhiya luuqadooday ku bartaan xisaabaha iyo af ingiriiska xataa luuqada Norway fox kama saaraan oo uguma jiro wax ay ilmi tilbud kale heli karaa marka taasay sameeyaan annagana macnihii waa samaysan karnaa kamuunka ama biidalka uu ku ogol yahay oo waxaa jira hadda culture-ka sheegaysa oo kale biidal walbaba macnihii ama xaafad walbaba lacag lagu dhiibay leedahay oo culture-ka hadda luuqada baraysid haddaad se u dheeshaan baraysid macnihii laakiin waxaa naga maqan isku duubnaashiga la dhihi karaa sooma marka fursadii way jirtaa haddii lagu talagalo ilmaha Soomaalida halkan waxa looga sameyn karaa inay yani faa'iido iyo adag ka shaqeysid deegaanka Xuseen uga shaqeeya yani ma la heli karaa fursad ilmahan wadankii iyo deegaanka ku qabsan uu ku joogo luqadiina uu ku barto faa'iido iyo Xuseen ama Abraar طبعا وهلي كرا قفكو يعني waxaan xasuustaa anigu aad ugu ma jiro yani ururada laakiin waxaan hubaa waxaan caawiyay beri urur af Soomaaliga beri jiray dhalinyarada iyo caruurta toyin schoolan uga qabtay 2 class ay ku jireen iyagu ururkaasi marka I don't think inuu dhaqaale mu heli jirin marka waalidkii lacag ka guri jiray sidii waa laga sii siibtay adigu akhritaanki maadaama waalidkii ay bixin kari waayeen oo laga yaabo de hooyadii ama family ay haystaan 3-4 caruur oo rabaan inay wafki wada baraan mar oo budgetkii uu ku bato ururada kale sida nimanka reerahan laga dhawaajiyay Sri Lanka oo kale way naga organized ama jeebkooda ka bixiyaan ama dad fara badan ha bixiyaan oo caruurta bilaasha ku tagto way naga waxay naga wacan yihiin kulley qaabka isku xidhnaanshaha iyo qaabka ay wax danta guud ama hawsha guud ay u wada qabsanayaan ay rabaan inay ka gaaraan waa fursad jirto oo la sameyn karo absolutely jirtaa taas way jirtaa taas Abraar hadda ay fahaysan ka dhawaajisay waalid badan oo Soomaaliya waxay aaminsan yihiin ama anaga noo sheegan luqadda Norwegian muhiim ah ay laboorka hadaad ka baxdo waad iska diinaysaa oo aad waqti kala baraysaa laakiin in the end of the day waxa arkaysaa ilmaha Norway ku soo noqonaya Norway ku koraya marka laga hadlayo suuqa shaqada ama waxbarashada sare Norway oo dabcan maadooyin Ingiriisi way jiraan laakiin inta badan wax ku baxay luqadda Norwegiga muhiimada inta leeg bay leedahay in qofku luqadda si fiican uga hadlo si uu waxbarashada u dhameyn karo shaqo fiican oo u qalantan u heli karo iyo ilmaha la soo celiyo oo luqadii hadii la rabo ilaaway ama sidii ay rabaan ugu hadleen ama qoraalkiisa aan qoraalka rabo qori karin saameynta laga baalinta ku leedahay horta luqada waa luqada Norska waliba adoo Norway degan oo rabo inaad Norway wax ka sameeysid ama aad ka shaqeysatid ama meel mogtay fiican aad ka gaadhid waa aad muhiim u tahay ana horta lawyer baan ahay lawyer kuno af Norwishka oo waxaan ku shaqeynaba haddii aan warqad qorayo ama haddii aan maxkamad tagiyo doodayo waa af Norsh ma waxa aan ku sameeynaya marka aan af Norshka aan aad u garanayo waa waxda ani horta aad muhiim u tahay bariiskayga ka soo galaa marka anigu waxaan oran doono wax aad u muhiim ah anoo Norway ku dhashay ku soo koray ayay Norsk faag hadnaha faagayga oo aan ku yarliitay waan u baahnaa inaan wax ka qabtaan aan ku dadaalo marka waan keenay markii dambe oo waxaan qaatay anigu sidii walaashan bay ka soo jeedisay anoo waxaan point aad u saxsan bay ay ka hadashay laakiin qofka laftigiisa raba in uu dib ugu noqdo waa si uu ku gaari karo meeshuu rabay isagoona markii hore malaha resultaadkii rabay inuu keenin laakiin uu ku noqdo ana saaban samay waan ku noqday Norshkii markii dambe waxaan helay karakter aad u fiican taasi marka waa imika waxaan ka hadlaynaa waxyaabaha ku saabsan in waxay yiraahdaan Norshku in
wixii ka imi inaad Soomaali tahay oo ajnabi tahay oo malaha de in maandre tahay taas waa mid taasna waxa laga yaabaa inay xogaa ku yara dhimayso laakiin ta kalena waxay tahay adigu motivation-kaaga waxaad adigu baad qaban kartid marka aad dadaal iyo aad ku dartid moogtahay motivation labada wixii waad kaabi kartaa wixii ka dhina marka haddaan kusoo laabto afnooshka haddaan ingiriis aqaano kale dhehba inaan ingiriis soo bartay ingiriis si fiican ugu hadlaya Norway si fiican wax looga baran karaa shaqo fiican ma ku heli karaa ingiriiska aan aqaano sida qof ajnabi oo kale noqonaya horta jaamacadaha nooshku laba ayaa kala baxan anu saan arko mid waa afnoosh ku saabsan yahay waxay tahay lawyerka historyga maxay yani imtixaan laga qaadayo waa examen waxaad qorisid mid kale mathematics iyo real fact dhakhtarka engineerka biologyga kuwa qaybta mathematics iyo laga yaabaa inaad afnooshka xogaa ka maarmisid laakiin wax barasho badan ayaa ku saabsan afnoosh anu waxaan garanayaa inaan ka timid Canada oo rabtay halkan in wax ka dhigato way yareedba waxay dhigan karaysay mid iyo labo fag program ayay ku dhigan karaysay af Ingiriisi badankooda waa afnoosh baa lagu dhigtaa Norway laakiin de waa wax jirtay laftigeeda af Ingiriisku soo socda af Ingiriiska imika dadku badanka imika aad baa loo isticmaalay xitaa shaqooyinka aad baa lagu isticmaalay kulay waxa u badan doona af Ingiriiska laftigiisa suuqa shaqada caadiga laftirkiisa hadaad shaqo ku qalanto de shaqo caadi aan ka hadlayaa suuqa shaqada caadiga inuu qofku ka maarmi karo Norwegiga ilaa xillan waa ognahay qofkan asagoo weyn imaaday la garay laakiin qofka asagoo yar wadankii uu ku dhashay luqadii uu awal yaqaanay ajnabi ka mar kale yani inuu suuqa shaqada caadiga ku soo noqdo asagoo luqada darteed caqabad ma kala kulmi kara dhankaas Xuseen baa gacanta ay laakiin aad ka hormar anu waxaan arkaa de waa ka maarmi karaa laakiin de way ku adkaanaysaa anu waxaan arkaa sabab ugu maarmo ma jirtaba mar haddaad noosh tahay aad Norway degan tahay waa wax ku fiican inaad afnooshka inaad ku hadashid si fiican uga hadashid waana waxaad aad karisid haddaad ku dadaashid laakiin de qofkii waalidka de ilmihiisa waa inuu de wax fiican la raba haddii aad wadankii aad ka saartid oo qof ilmihii afnooshka iloobo waan ku raacayaa dadka yidhi ma iloobiyo laakiin ma gaadhiyo de halkii uu gaari kari lahaa hadduu sii joogi lahaa yani waanu markaa uu de aad ugu dadaalaa afnooshkii inuu soo celisho keliya aad ku shaqaynaysid laakiin waxaad rabta inaad gaadhid level sare markaa de aad ama lawyer aad noqotid ama waxa doonaysa aad noqotid laakiin de aad qoraalkaaga iyo akhriskaaga u fiican yihiin Xuseen kadib faa'iiso waa run waa muhiim aniga way yiri saan sheegay way wad xasuusanaysaa laakiin xagga maadada ama qoritaanka dib bay kugu hanaysaa wad ka dhacday gadaalba wad dib baad u noqonaysaa waxaad baanaysaa markaa inaad dib u baratid markay noqoto af Norwegiga iyo shaqada waxaan maleynayaa Norway waxay ka mid tahay meelaha ugu adag ay ka reebgareeyaan ama ay inuu Norwegian ku hadli karto waayo imika dad meel ka soo A2 språk waxba jira A2 in lagu hadlo inaad karaysid oo aad basics waanaad garanaysid shaqooyinka badidoodu dikraabar ama way xiriir rabaan in af Norwegiga taqaanid waalidku ku baraarugsan arintaas ilmahan la sii wado oo haddana la soo celinayo luqadda ka lunto hadda wadankii sidee buu la qabaan walaba waqti oo kala dheer waxa laga yaabaa waalid hadda markaad waalid tahay waxaad kala yaabaa inaad ilmo yar aad noloshiisa isku daysid inaad maareyso laakiin shaqada qof kasta waalidana wuxuu rabaa inuu wax barto sidoo ku bartaba ku barto laakiin wuxuu rabaa inuu wax wacan qofkiisu ilmihiisu anu aabanahay waxa rabaa ubadkayga inuu wax wacan bartaan laakiin waxaad markaas aad waalidka ilmo yar aad tahay waxa laga yaabaa inaanad arkaynin visionkaagu ama aragtidaada fog waxaasa ciqabadaasa iman doonta haddii ay sidaas maartay aad u baalaysid waa qasab Norway af Norwegigu laakiin qof halkan ku koray iyo qof soo galay walaba waxbay kala yihiin qof halkan ku koray oo ku dhashay basics Norwegigu fahmaya hal celiyo xitaa hadii la doono laakiin markasta wuu fahmaya qof weynaan ku soo galay oo shaqada kaas ayaa ciqabad ay ku tahay loo baahnaanaya AN iyo AT way iga maqantay magaca laakiin waxyaaba jira faa'iisan gacanta taagneed laakiin waxaan kugu celinayaa maxaad tiri waalidku waxa laga yaabaa inuusan ka fikirin 18 sano kadib markuu ilmuhu suuqa shaqada u diyaar garoobo jaamacadda gaaro hadda waan aragnay dhibaatadii yani generationkii koowaad wadanka ku koray waan aragnay qaarkood waxay kala kulmeen hadda kii labaad ba korayay marka wixii kuwii hore ay kala soo kulmeen waalidku hadda inay ogaadaan soo muhiimaha si aysan isla meeshii kuwii hore ku dhicin ayagana ugu dhicin
dabcan laakiin taa qudheedu waxay u baahan tahay dadkii soo maray ama dadkii hore u soo maray jabka ama dhibta inay baraarujiyaan oo ogeysiyaan war halkaas haddaad istaagto ama taa laynka aad dooratid waa taasi waxaasi baa kasoo baxi doona waxaa jira horta nolosha bini'aadmigu wuxuu ku salaysan yahay qorshe inaan qorshe aanad samaynin noloshaad waa iska meesha doonto si ayaa si fudud ugu boodboodaysaa haddaa laakiin aad qorshe leedahay ood leedahay 2000 iyo ilaahayna kula garab galo laakiin aad tiraahdo waqtigaas waxa weyn qabto waqtiga marka waa la samayn karaa oo waxaad ka mid tahay qorshihii aad gelisay ubadkaaga inaad 18 sano insha Allah aad heer ku gaaraan laakiin falowgeedii baad qabatay marka laakiin haddaanu qorshe jirin waxa jiraya uun contest inaad ka baxdo mar walba ama halka ugu habboon ama ugu fudud marka situationka adiga ku haya inaad ka buudo rasiraado wallahi halkan kaga degaya noloshan imika yani bacdeen 2 sano ka bacdi waan soo noqonaya taasina hadhowto ka waxay ku keenaysaa hadana crash kale fais gacanta ku taagneed may waxaan rabay inaan ku kordhiyo sidoo walaalaba sheegay yani horta Norwaygu luqad laga maarmayo marnaba ma aha bulshada oo dhan baa ku salaysan haddaan dhahno xitaa ilmahaas amba dhalinyartaas uu ka maarmaya waxa weeyaan ilmo 1 iyo 2 fursad laga siiyay milyan fursado oo kala duwan taan rabay inaan ku daro waxa weeyaan aniga maanta qof weyn ah oo shaqo ku jira yawmiyan kelmado cusub oo Norwegian bartaa because waxaan still jooga heer mustawa ah shaqadayda dad cadaana jooga Norway dhalad ah oo wadanka ku koray oo yani adigii aad isla baratameysaan maanta oo dhan so anyways waxaan taaganahay adigoona wadankiiba laga saarin hadii maalinta ku xigta aad adigu luqadii aad sii baranaysid maxaa ku dhici kara ilmo wadankiiba laga saaray oo asagoo yar uu yimaaday hadii xitaa dib wax yar aan ugu noqono ilmaheena badanka waynu ognahay haddana insha Allah waxaan rajaynayaa inay soo fiicnaan laakiin luqada hooyada Soomaalida qani ilmaheenu kama aha taa waxay keenaysaa ilmaheenu markii iskuulka bilaabo waana forskninku waana la tusiyay in yani ilmaha haduusan luqadiisa qani ka ahayn luqada kalena qalin kama noqonayo marka already ilmaheenu markii ugu horeysayba xagaasayto ka gaabinayay marka asagoo xagaa ka gaabinayo oo iskuulkii markuu ungdom schoole ilmuhu uu bilaabo cartlagging intii lagu sameeyo la leeyahay wuxuu u baahan yahay extra maadooyin oo Norwayga lagu soo kobciyo already ilmihii oon la saarin buu heerka taagan yahay haddii la saarano waxaan u malaynayaa jab badan baa ku dhacaya sababta arinta luqadda ugu dheeraana waxay tahay anigan 16 sano Norway ku imaaday luqadda waxaan ka bilaabay galaaska 10aad laakiin markaas wax kasta way igu cusbayeen dib kuma qabo inaan barto xiisa u hay laakiin galaaskii waxa ila fadhiyay ko wadan ku dhasho ayna Soomaaliya oo Carabaha la geeyay ama Ingiriiska la geeyay ama wadanka la geeyay oo aniga markaa wadan ku cusub ila fadhiya ani marka waxaan aan xiiseynaya dib iguma inaan barto laakiin ayaga in ani ila fadhiya xuquuqdooda ku taa yani waxa aniga sid practical oo dareemay that's why waalidkeenna waxa laga yaabaa inaysan luqadda Norwegiga u arkin muhiim oo ilmaha la rarayo hadda dhinac loo wareejinay dhahan dhimala nolosha oo baran doona ama muhiim ah hadhow Ingiriis biso baran doona waan sababta ugu weerar dheeraanay hadda mawduuca kale aan ku xigeen waxa weeye arinta dambiyada booliska oo kale mar statistics soo saareen waxay sheegayaan ilmaha ugu badan dambiyada geysto ama qaybta ka noqda kooxaha wax dambiyada geysto criminality ka sameeya waxay u badan yihiin intooda qayb badan oo kamid ah tiradiisa fiican oo ma laakiin qayb badan oo kamid ah oo overrepresented ay ku yihiin dadka la soo celiyay intii wadanka la celiyay la soo hadan lagu soo celiyay waxaan ku bilaabay Cabdixamiid in ilmuhu maadaama milyoogiisii wixiisa laga dhax saaray markuu soo noqdo markuu wadanka la qabsan waayo inuu dhinacaas kale u beero dambiyada howlahaas galo ma u fududaan kartaa qiyaastaada adiga iyo khibradaada maadaama macalinku bixid ato bulshada ka warqabo taas oo sax waay caqabado badan oo macnaha hadda aan aragno maalmood bay ka mid tahay muhiimadda oo ilmihiina markay ku soo laabtaan ilmahaas la sheegayo ilmahaas dhibaatooyinka macnihii soo wajahay macnihii ilma aan helin waaye macnihii wax la dhahayo jid toosintii ama jid furkii hadda sida walaasheen ay sheegto oo kale unugas ma galeen meesha macnihii uu aaday ama jidka uu qaatay macnihii fursadda oo ay hayso walaasheen oo kale hadduu ogaan lahay ma raaceen oo kale
waalidka markuu ilmaha soo celiyana horta muhiimad waaye inuu systemka fahamsan yahay cunuga waa soo celisay intay ka wax uga bilaabi kartaa oo wax ay ka heli karaan oo ama luqadii ha noqoto hadda iskuulaadka oo kale cunuga macnihii dhibaatooyin badanna way kala kulmaan hadda markii galaaska 10aad ee ilmaha ay ku inta joogaba oo wadanka aan laga saarin oo markay video goonaha u socdaan waxaa loo macnihii dooraa ama qofka iskuulka ka ee maxaa la royiverka macnaha wuxuu leeyahay dhinacan faagan oo studio oo kale dad badan macnihii looma rabo dhinacyada kale la aadaya waxay ahayd ilmahan la soo celiyey uu soo noqdo networkiisi maadaama laga dhex bixiyey markuu soo noqdo ma u fudaansan luuq kala galo ka fudud inuu dadaalkan badan sameeyo taas waa daawo cunugii oo fursadda oon loo helin oo wixii oo markii la soo celiyey lagu badbaadin lahay taas macnihii way noqonaya laakiin haddii dhinacii iskuulkiina uu kusoo laabto uu la qabsan waayana banaanka u soo baxa haddana waalidiinta horta Soomaaliyeed waxyaalo badan macnihii aan intaan arkay iyo intaan isku dayna wacyigelin waalidka macnihii saaday u sheegeen oo kale waa inuu xaafadda ama meeshu degan network u leeyahay cunugaaga hadaa soo celisid iskuul inaad u heli kartaa hadduu uu da macnihii oo iskuul sida hadda sheegayso kale asoo 16 ama 17 macnihii hore ma ka heli karo macnihii meesha levelka uu taagan yahay marka taasaa keenaysa cunuga hadduu intaas waayo qasab waayo waxaa sheegaysid wuxuu helaa fursad kale oo ka fudud oonan dhib macnihii ama challenge kama fududay waa waqtiina fududa macnaha ka wada macnihii way u fududahay markii la dhaho intuu waay tana ku banaan macnihii tuu qaadana waxaan ka wada ilmo badan oo waxaa jiro saasoo kale aan arkoon dho macnihii ma jeceshahay inaad macallin noqoto ama inaad dumar noqoto oo macnihii kooxyada macnaha oo lacag ka heli waxa ka wada albitre dumar marka taasoo kale macnaa bulshadii aysan awareness ama aysan jirin macnihii taa sheegaysid qof kale sugaysid maalinteed markaa meesha joogta la hadaad fursadan waysid fursadana ku banaan faiso maadaama aad hadaan ka hadlan ilmahan caqabad uu kala kulmo shaqo helo shaqo kale meel kale inta shil ma ka heli karaa dambiyada maadaama uu qof weyn marka uu yahay lacagna uu baahan yahay laga yaabo inuu san caawinto marka ma u fudaansan wadadan kale lacag ka raadi absolute u fududaanaysa waxaana yara naxdin ah in iska da inay u fududahay dad baa banaanka u taaganba oo runtii hadduu maanta yiraahdo shaqaan haddii niyadiisa ka soo go'do maanta shaqaan raba inaan galo waxaa laga yaabaa in runtii maalinta ku xigtaba uu shaqo gali karo taas waxaa keenaysa dadkan kane banaanka u taagan waa dad iyagu baahi u qaba dhalinyartan marka si kastayba kusoo xirigelin karaan way kusoo xirigelinayaan laakiin ilmahana runtii markuu mid waxweyn mid mas'uuliyadda waalidka saaran laakiin haddana waxaani muhiim ila ah in laga hadlo mas'uuliyadii bulshada xitaa way gabtay ilmahan runtii bulshada Norway dawladda aynu hoos joogno magangaliyadayna siisay xitaa shaqadooda dhinacaas way ka gabeen waayo waxyaalo maanta tiltaag ilmahan loo hayo oo diyaar u ah ma jirto because ilmahan markuu soo noqdo yacni meelo gooni uma jirto si gooniya looma tixgelinayo looma dhahayo ilmahan wadanka uu ku dhashay isagoo yar baa laga kaxeeyay shaqaha loo fududeeyay amba meelo kale oo dee runtii la dhahayo inuu ilmuhu waalidka uu la taxadaro la tacaalo mooye system kale oo garab istaagsan runtii ma jirto hadday jiri lahaydna waalidkii ma oga oo yacni meelihii ay caawimada maybe ay ka raadsan kari lahaayeen taas waxaa ka mid ah xarumo baa jirta lala hadli karo lala xiriiri karo ilmaha ku caawin karta laakiin xarumihii xitaa hadeen iyagii luqadii Soomaali amba luqado kala duwan ayay masiidahoodii pagekoodii ayaan ku dhigaynin dadkii caawimadii wixii meeshii taale maybe in caawimada taale laakiin waalidkii inay gaari kareynin so ani waxay la tahay runtii yacni in waalidku waa mid laakiin waxa sheegtay dawladdu kale inay gowda ma jira dood laga sameeyay ama kiis laga sameeyay ama in yani loo bandhigo la dhaho
dadkan intaas kiis bay qosaysaa yani in lagu baraarujiyo maybe inaysan ka warqabinba ma dhici karta inaysan in cid ka hadashay aysan jirin oo case ka dhigta oo marksmaysiisa waa laga yaabaa mana u malaynayo runtii inaan maqlay dood ku saabsan arrintaas keliya waxayna muhiim u tahay runtii in laga hadlo waayo ilmahan badanka la celiyey oo la soo celiyey waxa weeyaan ilmo statistic runtii uma hayo laakiin waxaan ka hadlay anagu dadkaanu nala soo xidhaan la hadalnay waxa weeyaan ilmo waalidkood ay fal dambiyadu ka baqayeen markii horeba oo ay yiraahdeen caawimo booliis iyo baarlamaanba waanu weydiisanay laakiin waana la caawin waayay maadaama ilmahaas pointka daraadis wadanka looga saaro dib loogu soo celiyey ani waxay la tahay dowladda Norway waa inay yani ay iyaga xitaa ay garab istaagin karto laakiin looma soo bandhigin anigu kolle basaan u malaynayo mas-uuliyadda ayaa saaranta in la soo bandhigo kiiska la yani maadaama dhib jirto annaga aan dareemayno qof walba hadda waxaan ka hadlayno dadkana daawan doona way arkeen ama saaxiibkaa bay khusaysaa ama wiilka qaraabada atiin bay khusaysaa waa waxaan aragnay marka waay arrintan publicly loogu sameyn waa engagement oo ama dowladda loo bandhigo dabcan media way ka hadlayaan Norway laakiin qaabka waa hadleen qaabka oo waa qaab dhinac kale oo ku saabsan farmuuqis marka annaga mas'uuliyad min soonama saarnaa xisaan da soo shaadi ku weydiin inaan maadaama waxaan aragno inaan ka sameeyno kiis politics saaka ka sameeyno aan daba raax ku sameeyno si daba galno walaalo su'aal aad iyo aad muhiim ah oo baahan of course waa muhiim ugu tahay in kiis laga dhigo anigu ma garanayo in laga dhigay kiis iyo in cid ay ka dhigtay ma garanayo laakiin inay muhiim tahay baan rabaa inaan idin sheego in laga dhigo oo welibana anigu inaan yani inaga qudheeno inteena meeshan fadhida ama inta Soomaalida oo dhanba iyadoo wadata maxay tahay masaajideeda waa in arrin muhiim u ah in laga falgalo si aynu wax uga qaban lahayn caruurtaas aynu ka hadlayno markii soo noqdaan dhibta kala kulmaan ma gelayaan arrimaha mukhaadaraadka iyo wixii lamid ah waa arrin aad iyo aad u muhiim ah in wax laga qabto laakiin odhan maayo anigu waxay taalaa mas'uuliyaddu halkaas oo keliya mas'uuliyaddu waxay taalaa way kala qaybsan tahay waa run dowladdu wada Mangelia la weydiistay wax badan bay ka mas'uul tahay anigu Ramas Buli oo keliya kama shaqeeyo naaf baan ka shaqeeyaa wanoo yimaadaan iyagoo dadku kala duwan oo maaragtay shandadoodii sita oo markaas soo noqday hudheel baa loo raadinayaa ama meel markaa qofka anuma ma lihiida waa dad fara badan laakiin waxaan ka hadlayaa experience-kayga yar inta yar aan ka arkay waxa jirta qof aan soo qorshayn laakiin markii hore degdeg ku baxay markii dambe degdeg ku soo noqday meel baad u raadinaysaa meel baad ku tuuraysaa Allah yaclam meeshu say tahay marka ilmaha halka ku jira ee teenager-ka maskaxdiisa hadaad gasho siduu noqonayaa baa su'aal taala intee in leeg buu markaa markiiba halkan su'aal ka dhex weydiiyay ilmaha waddanka ka guuray adresku ka baxay laga yaabo inuusan registerka ku jirno inuu waddan ka baxaya inuu system ku soo noqdo oo qof waddankii degan noqdo imise ku qaadan karta dib dhinaca kala kulmaa especially hadda xilliga la joogo oo Norway aad iyo aad u adkaysay haddaanad la imanin contract beriga hore care of markii wad geli jirtay laakiin hadda waynaad la timaado contract si aad u gasho baanankii waa kuwa ka wada xiray dadkii maxay ahayd toy cidii iscadeyn weyday maqnayd yani process adag oo dheer weeye oo aad iyo aad waqti u isticmaalaya haddii aanu eegno markaa ilmaha ama dhalinyarta يعني hilibku wuxuu wacan yahay inta kulul inaad cunto inta niyad haysid inaad markiiba gasho oo aad hore ka socoto noloshaada hore ka socoto ayaa wacanta laakiin marka ay waqti dheer kugu qaato niyadaada way jabaysaa recruitment baa ku imanaya ama waxa ku imanaya sida Faisal sheegtay dad ku diyaar shaqo aynan xitaa qodheenu dhaqan u lahaan jirin berigii hore markaanu taariikh aanu eegno way mukhadarooyinka mid baynu u lahaan jirnay kiyata laakiin kuwan kale hadda way nagu cusub yihiin يعني سالهان waxa dhada state jira wadan ku soo noqotay 6 bilood bay kugu qaadatay inaad system ku soo noqoto dhaqaalada u baahanta of course macayr bataysa marka ama yani qofku marka inuu macayr aado ama midan ku sheegay dhalinyartu ma aha dadka ugu hore waliga qofka weyn inuu hore u soo yimaado sababta baahidiisu ogiya dhalinyartu waxa laga yaabaa 3 bilood inay qaadato isagoo waxba helin inuu ku yimaado waxa laga yaabaa inuu suuqiisa iska dabaro waa suurtagal dhalinyartu ma aha يعني دوا
qof weyn laakiin qof isku filan maaha haddaan la hagin oo maaragtay oon la toosin oon maaha waa qof weyn muuqiisa hadduu doono gariyo waa leeyahay laakiin haddana still waa dhalinyaro wuxuu u baahan yahay in la toosiyo waxa laga yaabaa inay 3 bilood ka badan bay naga maqlaadaan haddaanu joogno naaf waxa laga yaabaa markuu meel kastaba derbi kasta soo jiifo dhaco inuu noo yimaado akhritaanka oo la yidhaahdo halkaa hadda welibana waxay naga yara dalbadaanuun maaha nolol laakiin wax yaroo la yidhaahdo nood wax degdeg ah okay abrar arrinta ku saabsan motivationka qofku inuu niyad leeyahay isku kalsoon yahay waa qofku qayb ka mid drive craftigiisa waa lagu celiyey xuseen baday ka dhawaajiyey waa lagu soo celiyey saaxiibada waxaad aragtay baawur qurux badan oo shaqooyin badan haysto adigina qaxooti Syrian iyo Ukraine dhinaca lagu fadhiiso luqadii hadda baro ama waxa arrinta xuseen ka dhawaajiyo ah in isla magaaladii aad ku dhalatay aad marti ku noqoto isla systemka isbitaalka aad ku dhalatay iyo deegaanka aad ku dhalatay inaad yani aad ku dareentay inaad hadda soo gelaysid arrintaas oo kale motivationka qofku inuu isku arko mustaqbalkiisa soo arka saameyn inta leeyahay ku yeelan kartaa qiyaastaada iyo xitaa hadii laga hadlayna wax sii barto oo shaqo fiican raadiyo horta motivationku wax aad u muhiim ah oo motivationku waa waxaan kala saaro weeyaan qofka motivationkiisa waxay qofka motivationkiisa noloshiisa ay wax oo sheegaysa halkuu rabo inay noloshiisa inay tigto waqtaas wala waa nolosha su'aal kale laakiin motivationku wuxuu ka dambeeyaa shaqada aad ka shaqaysid guriga aad ku nooshay gaariga aad wadatid wadankan ku noolahay Xuseen baa naaf ka shaqeeya welfare state weeyaan oo qof walba uu noolaanaya cidna ma gaajoonayso laakiin noloshaad ku noolaanaysid si oo ekaanayso waxay ku xidhan tahay motivationkaaga motivationku anagu naadaan nahay ajnabi dadka mugtaa SSP waxa raatan xitaa ku dhashay ajnabi noshka fat in mandar noo bixiyeen ama hadii aad wadan kale aad ka timiyo aad wadankan joogtid weliba dad Soomaali tahay motivation keena marka muxuu noqonayaa motivation keena inta badan wuxuu noqonayaa weliba dadkeena imika wadanka ku soo koray waxay noqonaysaa motivation keena marka inaan shaqooyinkii waaweynaa toos u galno maadaama waxaan rabnaa inaan noloshii ay ku noolaayeen kuwii ethnic noshka ahaa inaan degdeg ku gaadhno taas weeyaan marka waxaa loo bixiyay early irkiyaasha earlyna de waa advocaat leege engineer motivationka aan ka taa qabno markaan waxaan aaminsanahay waxay ku saabsan tahay taa nimka sheegay inaan rabno inaan la tartamno nolosha kale motivationkana wuxuu ku fiican yahay maaha wax moogtahay qof oo gaar qof walba motivation uu heli karaa uu sameyn karaa mid ku saabsan inaad marti ku noqoto magaaladaada ku dhaawici kartaa self motivationkaada ama dareenkaaga inaad wixii aad markaa yareed ku haminaysa aad sii gaarto de horta sawirka aad samaysaa tiri mid baa ka soo noqday malaha wadankii baa lagu celiyay uu soo noqday dadkii classka ula dhegnay buu arkay oo iyaguna de horumar sameeyeen isaguna uu ka dambeeya taas de motivation way ku noqon kartaa ama waad mordalaaci kartaa ama waxay ku noqon kartaa motivation taa waxay ku xirantay qofku siduu wixii oo qaadanayo laakiin oo malay qofka kilaatna ku xirantay kale waxay ku xirantay qofka laftigiisa guriga ku yimi interpretationka in psychologically siduu wixii arkayo waad mordalaaca hadii aad marka hore de aad ay noloshu ku daciifisay ama noloshu ay ku dhibtay waqti taas waxay taan rabi laftigeeda inaan wax ka sheego waxay tahay motivationka qofka ka yimi waqti guri fiican ama sababtu waxay tahay anagu Soomaali baan nahay gebigeena ba in mandar baan nahay gebigeena ba isku meel baan ka bilaawnay marka waa motivation ku yaan waxa qof walba motivation wala karaa imika qofka daawaniye isla wax rab loo inuu noqdo dhalinyarada kulay isku si baan soo kornay aniga isaga marka motivation anagu hela isaga wuu heli karaa marka motivation qofka anu saar waxaan arkaa wax aad muhiim marka waana motivation way ku noqon kartaa sabab aad ku dadaal ku samayso dhinaca kalena way ku dhaawici kartaa dhaawac ku yeelan kartaa waxa ku soo dhigaaweynaa gabagabadii mawduucan waan ku yara dheeraanay waxyaabo badan baan ka hadalnay waxa laga yaabaa inaan daawanayaan dadkan aan ka hadlayna qayb badan oo kamid ah waalidkii ilmahooda hadda ku fikiray inay diraan kuwa la diray ilmahooda diray oo hadda rabay say wadda ku soo celin lahayn I think min daqiiqada aan siiyo oo tala
nadan Cabdixamiid ku bilaabo aad u dambayso xirada ku socohay soo koob marka motivation horta bulsho ay ka dhano motivation sida walaalkeen oo sheegay oo kale macnaheedu baahida jirto dhibaatooyinka jiro macnaheedu dad u taagan oo macnaheedu u sameyn kara motivationkaas cunuga kaliya maaha qoyska uma gaar ah laakiin bulshada waxa la raaco qowmiyadda dhan Soomaalida waxayna wada istaagaan isku garab siiyaan bulshada qayb ka qaadan kartaa bulshada tan ugu weyn waa macnaha la sheego kale meel walba fursada taal laakiin waalidka duusan ogeyn maraadsan karo ana xaafadan deganahay wuxuu waalidka suga baahan yahay waa u raadin karaa xaafadaha kale saas oo kale laakiin bulshada meel ay ku kulanta aysan jirin ama qowmiyadaha kale aan wax ka baranay wixina lagu sameeyo tan kale aad tirana macnaheedu horta waalid Soomaali oo inuu wadan ka guuro adoro ana kula talay toos inuu u guuro oo soo laabmo muhiimadu waxay tahay sida hadda dhibkan dhibaatooyin badan ama muhiim ay tahay qofku inuu sheeg ka fikira intuu soo sameyn haduu dhaayna waa soo laabane inuu wadankan iska joogo labadaas option aan dheelay gurguritaanka uu yaray hadda dhinac u hordee waxa laga yaabaa inay ilmo waalidku u guuray buu rabaa inuu soo noqdo tala ugu dar lahayd ma hadduu dhib qabsadana macnaheedu hadda arrimo badan qofka siyaawooyin kala duwan oo ay ku qasbi kartaa inuu baxo haddii dhinacan ilmaha ku baana waana loo si looga caawiyo waalidiinta jirto oo xaafadaas community-ga ama xaafada degan tahay sababihii hore awal anaga macnaheedu uma lahaan jirin fikir ama sidee u shaqeeyaan waa laga carari jiray laakiin hadda anaga xaafadan deganahay wadankan qof walba inuu ogaado qof safe ma jiro qof walba macnaheedu meel walba laga soo gali kara laakiin bulshada markay isku xiran tahay dhinacan ilmaha baana waa laga hortagi karaa haddii caqabad kale jirto waalidkii inuu guuro uu rabana macnaheedu waa inuu waalidiintii experience-ga ama waxaan hore u maray inuu weydiiyo oo taladooda go'aan rabina marka labaas go'aan aan dhila qaat Xuseen adoo xilli waad ilmo ahayd hadda adaa waalida booski aad shalito ilmaha adoo aad joogto adoo ilmaha laga yaabaa waa ay jiraan ilmo kale xilliga meesha adoo aad taagneed sanada ka hor in ilmo kale Soomaaliya taagan yihiin marka waalidka Soomaaliya ku fikiraya inay ilmahooda hadda diraan wadan kale u diraan si ay ama luqad u bartaan wax kale u sameeyaan adoo og wixii aad jabaan soo martay iyo khibradaada aabanimo ama shaqaalanimo ama aqoon-yahanimo maxaad ku biirin lahayd tala adoo soo koobay walaalo waxaan ku biirin lahaa horta I think marka ugu horeysa waalid uu dirayo ilmo ama uu rabo inuu wadan kale u aado ama isagu qudhiisu la guuro go'aan aad iyo aad u culus waxaan anigu tarin lahaa in qorshe lagu baxo qofku inuu noloshiisa qorsheeyo qorshana uu ku soo noqdo waxaan anigu shakhsiyan hadaan idhaahdo experience ahaan waxaan xasuustaa wixii igu cuslaabay ahayd aan xitaa waxaad ku maray inaan wadankii dib ugu noqonin oo aan maaragtay mar dambe ku noqon maayo noloshayda taydii may noqon ta ilaahay bay noqotay asaliyan reer guuraabanayo baadiyahaygii iyo geelii iyo caanihii iyo hawlahaygii baan u xiiso markiiba dib baan ugu noqda laakiin waxaan ka hadlayaa waxa weeyaan adoo weyn laakiin may wallaahi sanadii barkin bacdiba dib baan u noqday waxaa muhiim ah oo aad iyo aad u muhiim ah oo waalidkana kula talin lahaa oo inay qorsheeyaan qofka bilaadmiga uu guuri karaa laakiin inuu qorsheeyo noloshiisa si ay mar kastaba u qorsheeyaan waxaa ka muhiim ah oo markaa inay qorsheeyaan soo noqodkoodii tacliintii xagga laga bilaabayo guryihiisay u heli lahaayeen yacni waxaasoo dhan marka la qorsheeyo qofku dee insaanka wuu guuri karaa uu noqon karaa ka waalid ahaan markuu ilmuhu soo noqdo muxuu u qaban karaa maadaama adigu aad mar soo ahayd xilligaas markaad maxaad ilmaha u qaban kartaa waabad soo celisayba gacan buu kaaga baahan aad iyo aad ugu dheganuglato aad iyo aad inaad ugu dheganuglato ilmahaas sababtoo ah ilbiriqsi waqti kooban gudaheed ayuu wada qaldan ilmahaas ku qaadan karaa markaan leeyahay ugu dheganuglato waxa weeyaan waa inaad qorshihii bay hoos imanaysaa waa inaad markaa keento iskuulkiisii waa inaad keento haddii aad activity aliya aad buu muhiim tahay halkan kamaynan hadal oo ninka waxaan tahay Cabdixamiid waxa weeyaan kubadda cagta ayuu wadaa nolosha waxaa investmentka ugu badan la gelin karaa ilmaha activity in la geeyo
sababta ah qof kastaba tusaale hadduu iska soo qaado intii activiteed wadankii joogtay xitaa waxay ka badbaadi jirtay waa laga yaabaa inay doortaan hadhow markay weynaadaan laakiin waxay ka badbaadi jireen in iyagoo da-yara ay galaan mukhaadaro inay galaan meelaha u baydhaan maaragtay wadada qaldan activiteedku inagu waqti lumis baynu u naqaanaa baa laga yaabaa waa suurtagal as a waalid laakiin activiteedku aniga qudhayda ku badbaan ciyaari jiray waxyaabihii badbaadiyey ama inaan qaato wada saxsan iyo ilaahay subxaanahu wa tacaala oo maaragtay hagaayey laakiin activiteedku aad iyo aad buu muhiim yahay activity la geeyaan odhan lahaa una qorsheeya haddii aydaan u qorshayn ilmaha la soo celinayo dhalinyarka ah xoogga ah isu malaynayo inuu yahay qof weyn go-aan leh haddii aan loo qorshaynin oo aan markiiba noloshiisii isku dayin in lagu soo celiyo halkii uu ka tegey waddo qaldan buu qaadanaya ilmahaasi okay fais dhalinyar badan baad la kulantaa shaqada aad kula kulantaa ku imaada caawin ku weydiisto ama aad caawisaan waalidka iyo dhalinyar labaduba waalidka laga yaaba in ilmahooda ka warqabin waxay la kulmayaan suuqa shaqada kala kulmayaan ama dhibaatadan la kulmayaan jidka kala kulmayaan ee laga yaabo ku faraxsan in wiilkooda usoo noqday guriga u joogo laakiin laga yaaba aan ogeyn wax kale maxaad talood siin lahayd ilmahana maxaad tala siin lahayd ma waxaa jiro meel ay aadi karaan oo caawin ka dalban karaan tiltaag ee loo sameeyey meel un yacni si u helo at least line ooga baxo meeshan oo su-aalaha u weydiinaya jawaab uga heli karo may horta talada ugu horeysa aan waalidka siin lahaa haddiiba mar dhacdo inuu ilmahooda intii la diray ay soo noqdaan ta ugu horeysa waxa weeyaan oo dhalinyartuba afkooda ka dhahdo waxa weeyaan markii nala soo celiyey oo fursaddii nalaga khasaartay baa still waxaa nalagu push garaynayaa iskuulka maxaad u geli weyday iskuulka maxaad u dhameyn weyday maxaad karakter fiican u heli weyday marka mar haddii ilmihii fursaddii laga qaaday inaan inagana mas-uul iska saarno in ilmahan la fahmo dhibaatada uu beritoole uu arki doono oo haddii la arko inuu iskuulka niyaddii ay ka jabsan tahay xitaa amba macalin gooniya loo qabto amba lacayo laakiin ilmihii siduu walaalkeenba sheegay loo dhaga nuglaado dhibtiisa la dhagaysto runtii oo aanan la dhayalsanin badanka gabdhuhu way ku fiican in dhibaatadooda ka hadlaan laakiin inamadu way isciilkaambiyaan wayna qarsadaan marka anigu waalidka horta waxaan kula talin lahaa in ilmaha loo dhaga nuglaado oo waxa ay dareemayaan oo ay sheeganayaanna iyagoo lala soconayo oo lala jaan qaadayo bartaa caawimada laga garab galo hadday noqoto dhalinyarta taladan siin lahaa waxaweyaan horta hay-ado badan baa jira laakiin ilmuhu waxaan u malaynayaa waalidku waxay jecelyihin hadduu ilmuhu meel tegayo caawimo raadsanayo inay waalidku ay iyagu xitaa ay og yihiin marka way jirtaa meelo badan runtii oo maanta ilmaha caawimo dee ay ka heli karaan waxay noqon kartaa tiltaak oo biideelka dhexdiisa ah oo ay noqoto amba meel seeknad iyo seevega loogu qori karo amba in ay jirto klubiyo sida walaalkeen oo kale intii la tago xitaa hadday noqoto inay kubado u ciyaaro in la heli karo meelo ka bixiya lacagta kubadda oo aanan waalidkii xitaa aanan culays dambe ayaan saarmin marka uu kusoo noqon kara noloshiisa haddii waxaa sameeya waxaan filayaa ilmuhu 100% runtii wuu kusoo noqon karaa haddii ilmihii iyo waalidkii ay isla jaan qaadayaan okay abraar lawyer baa tahay waxaa laga yaabaa kiisas badan oo yani dabcan waxaan ka hadlayn inta badan waxbarashada aan ka hadlayn laakiin lawyer baa tahay waxaa laga yaabaa inaad nolosha caadiga ama shaqadaada wax badan kula kulanto dhalinyartan la celiyey oo lasoo celiyey oo laga yaaba inay su-aalo badan isweydiinayaan iyo xitaa waalidka laftikooda tale aad u dirayso ood leedahay waxaasi waxaad baa samayn kartaa si aad noloshaadii meeshii aad oga tagtay wixii aad waaga dhalinyarada rabtay aad dib u gaarto horta dhinaca looyarnimada dee horta anba waan arkay inama dhalinyaro soomaaliya oo dee dhowr jeer aan maxkamadda aan isla tegnay anoo oo ah fashwarir oo waxay ahayd strafisak marka in la celiyo in kale dee aad uma kala garanayaan waxaan u arkaa un dee inama yaryar oo dhalinyaro oo nolosha soomaalida laakiin de statistica adigu aad noo sheegtay oo aad leedahay kuwa wadankii la geeyey la soo celiyey ayaa aad ugu badan groupka waa horta waa wax de aad u muhiima marka in aad loo eego taasi mala waxay noqon kartaa talay oo noqon karta kuwa waalidka hayste isweydiinaya ilmahayga maan geeya ama way sii joogaan horta wada hadalkan wuxuu aad ugu fiican yahay siduu cabdixamiid ka yeedhiyey isagu wuxuu yidhiba si toos ah hageen wadankii
marka taas malaha wada hadalkan oo kale hore loogu naqin malaha oo aad bas aad sheegtay generation ugu horeysay ayaa waxaan samayn jiray ka labaad malaha marka wax buu ka bedeli karaa ama cashar buu ka helayaa wixii hore u dhacay dhinaca loodnimadana dee waxaan odhan karaa un dee anigu horta si fiican horta waxa fiican dadka Soomaali badan baan anigu ayaa ila soo hadla badanka kuwa u baahan caawimaad halka sharciga waa dadkii hore dhalinyarada way iskaraan iyagu sharciga noloshka ama something noloshka way si fiican bay ka mesajada waxay ahayd tala ahaan si ay kariyarkooda dib u dhistaan waxbarashadooda dib ugu soo noqdaan yani meeshay ka tageen dib ugu soo noqdaan ayagu talaad siinaysa u dirayso any2 talada aanu iyaga aan siinayo waa tiyo motivationkii aad sheegaysay in qofku uu helo motivation waxa la yiraahdo inner motivation uu markaana uu shiraato waa mogtay waqti kaamu tegin hadaad doonaysid hadii wax lagu adkeey waalidkaaga ay wadankii kugu celiyeen waa wax iyagu ismeeyeen laakiin adigu hadii marad soo noqotay waqti chance badaystay marka inaad noloshaada wax ka sameeysid motivationkaagana waxaad ka dhigi kartaa wax aad waxaad ka dhigi kartaa wax aad horumar aad samaysid celintaad waxaa ka dhigan kartaa sabab aad u dadaasho okay waqtigaan ku ballan wax yar baan kor dhaafnay mawduuc aad u ballaaran waxyaaba badan cabdixamiid ugu dartid bulshada Soomaaliyeed ama macnihii adigana macnihii inaad qayb ka noqoto anagana inta fadhina qayb ka noqona dhibkan hadduu dhaco qof macnihii dhibkan ku dhacay inaa la caawiyo bulshadana inay ogaataa ilmahan dhiban haddaan la caawin ilmahan kale oo guryaha lagu haysto ama inaga ilmahan dhalnoo kale inaysa safe ahayn bulshada ayaka taasina dantooda ku jirta ilmaha caawiyaan mawduuc aad u ballaaran waxyaaba badan baa soo waxbarashadii koritaankii guuritaankii wax yani wax oo hal dhinac looga fiirin kara maahan laakiin at least waxaan rajeynayaa maanta in dadka barnaamijkan daawan doona ay ka helaan hal talo oo ka anfacdo ama hal xal oo ay isleeyihiin dhibtii haystay xal ba noqon karta ama ay heli karaan faa'iiso kale ama hub competence oo kale ama abraar ama xuseen oo kale ama cabdixamiid oo ay la soo xiriiri karaan oo talo weydiin karaan dhibtan baa haysatay maxaan sameeyaa aad baad u mahadsantihiin barnaamijka waxaa igala qayb qaatay cabdixamiid maxamed xuseen oo ah macalin tababaraha siyaasin ah xuseen cawad nuur oo ah maamulaha iyo asaasaha shirkadda guryaha Ramas Buli dabcan arrinta guryaha kiis gaara weeye oo si gaara u baahan in geesiis loo fiiriyo oo waxyaaba badan buu soo gelayaa koritaankeeni la xiriira waxaa iyadana la joogtay faa'iiso cabdi warsame waa maamulaha ururka hub competence oo urur aad uga shaqeeya degmada Tooyin oo dhalinyaro iyo waalidiin badan caawiya iyo abraar oo ah qareen Soomaaliya oo sharci yaqaan ah dhammaantiin aad baad u mahadsantihiin waqtigan aan kaga mahad celinaya waxaan rajeynayaa inaan doodan mar kale isku aragno anagoo intaan ka badan lagana hadlo markii laga hadlana maybe halka ka soo baxo waa mahadsantihiin